macadka Salaaxudiin ayaa ardayda ka barata waxaa la guddoonsiiyay maanta jaa-isoon iyadoo macadkaasina dib loo furay sanad dugsiyeedkiisa 2014 iyo 2015 warbixintan Axmed Deeq Maxamuud oo Xuseen ayaa inooga soo diray Dhahar xafladan oo si weyn loo soo agaasimay ee ka soo qayb galay dadweynaha aad u tiro badan ayaa lagu daahfurayay sanad dugsiyeedka 2014-2015 ee macadka Salaaxudiin barashada diinta islaamka iyo waliba xirfadaha gacanta ee ku yaala degmada Dhahar xafladan waa xaflada furitaanka sanad dugsiyeedka 2014-2015 ee macadka xafladaas oo ahaanaysa ama sanadkaas oo sanadkii saddexaad ee macadku uu noqonaysa sidoo kale xafladani waa xaflad la rabo in abaalmarin lagu siiyo ardaydii kaalmaha hore ka gashay sanad dugsiyeedkii 2013-2014 iyo sidoo kale in abaalmarin sidoo kale lagu siiyo musaabaqo ama tartankii Ramadaanka bisha barakeysan ee macadka ardaydu ay ku tartamaysay macadka Salaaxudiin العلوم الشريعة والمهنية. معدك وحو ككوبن يهي 6 فصل واي wax ku bartaan gabdho معدك وحو leeyahay marxalado kala duwan oo kala ah marxalada ibtidaa'iga ama asaasiga marxalada idaadiga ee dhexe iyo marxalada thanawiga ee waxbarashada sare waxa dhigta macadka arday taqriiban ku dhow ilaa 200 oo arday waxaa loogu talagalay ama markii la aasaasayay fidinta dacwada islaamka iyo la dagaalanka ummidnimada iyo ka qayb qaadashada baahiyaha bulshadu ay qabto ee waxbarasho in kor loogu qaado intaas ayaa loogu talagalay wuxuu sidoo kale macadku higsanayaa oo uu leeyahay dhul banaan oo aad u balaaran ilaa 60 dhan oo uu sugayo ama uu higsanayo inuu dhismo ka helo oo si uu wax ugu barto macadku waxa uu bilowday isagoo aan haysan bimaana guri macadku kan ma badan ayuu baahan sida ognahay arinta ugu muhiimsan waxa weeye uu macadku baahan yahay in uu helo dhismo u gaar ah sida uu sheegay maamulaha Cabdiwali macadku wuxuu dul saaran yahay dugsi madax banaan ee madrasada Abubakar haddana dadkan macadkan asaasa ayaa waxa ay leeyihiin mudnaanta koowaad iyo mahad in la siiyo waayo waxa ay ku soo wadeen macadkan sabir iyo dhabar adeeg sidoo kale dadweynaha ka soo qayb galay xafladan aad u ballaaran ayaa waxa kamid ahaa gudoomiyaha gobolka Highland Maxamed Faarax Ciise Jantalo iyo waliba Sheekh Axmed Cabdi Samad oo si weyn uga hadlay labaduba waxtarka uu leeyahay macadkan guud ahaan dadka ku dhaqan deegaanka Dhahar kuwaas oo ka codsaday ganacsatada iyo waliba waxgaradka inay gacan siiyaan sida uu u taabagal lahaa macadkani macadka qaybtii ragga in lagu daro ila dedejiyo oo sanad dugsiyeedkan aanu idan la dhaafin ma idan la qumanta haddii kala gabar sheekada haddaan soo saarno oo nin allow sahla aanu guurino oo jacbara soo mashaqo noqon mayso waxaa loo baahan yahay gabdhaha culimada ah rag culimada inuu soo saarno magaaladuna arrinta ay isugu tagto rag iyo dumarba masaajida iyo duruusteedana in lagu xilmo macadkana lagu dadaalo annaguna waanu idin hambalyeynaa ilaahayna waxaan idinka baryaynaa inuu idin guureeyo waxaana idinku dhiirigelinaynaa cilmiga iyo ku dhaqankiisa iyo isukaashigiisa iyo walaalnimada maxadakan aan lahayn dhismaha sidii looga qayb qaadan lahaa runtii mas'uuliyiin macallimiin ganacsato iyo cid kasta waajib saaran way wixii la oran lahaa kulay waa aad baa loo yiri aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mas'uuliyiintii iyo macallimiintii heerka soo gaarsiisay iyo ardaydii hablaha u badnayd oo ama hablaha ahayd oo soo dhabar adeegtay ugu dambeyntii macadkan barashada diinta islaamka iyo waliba xirfadaha gacanta ee Salaaxudiin ee ku yaala degmada Dhahar ayaa waxa la guddoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay jaa-isooyin aad u qiimo badan waa Axmed Deeq Maxamuud oo Xuseen TV-ga caalamiga Soomaali Channel Dhahar